maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa dhacaya qaraxyo isdaba joog ah taasi oo dadku cabsi badan ka muujinayeen xaaladii amniga oo faraha ka baxday. tira ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiiro ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sababaha amni darrada magaalada Muqdisho iyo cidda loo eedi kara xilligan. ummadda Soomaaliyeed xamar ku daadanaya aad baan uga xunnahay sida wada ogtiin labadii sare oo talada hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa dhintay oo ku baxay gacanta argagixisada dad ka badan 5,000 oo qof oo shacab ah labadaas sana hadii loo qaybiyo macnaheedu waxa weeye labadii halkii bilba waxaa dhimanayay 200 oo qof dawladda waxa looga fadhiyay inay la timaado istiraatiijiyad iyo siyaasad cad oo ay wax kaga qabanayso ammaanka midna lama iman ilaa hadda ammaanka magaalada Muqdisho waxa kaliya wax laga qabtaa waxa weeye jidad la xiro oo lagu dhibayo oo dib ku noqda inay wax u taraan iska daayo oo ay yareeyaan qaraxyadii dib ku noqda ummadii shacabka hay'ad caadi qarax waa soo dhaafaa jidadka la xirayo laakiin dadka shacabkii ma soo dhaafaan waa lagu reebaa marka waxa weeye ayaan darro in dawladdii loo doortay inay ajandaheeda koowaad ama ballanqaadkii koowaad lagu doortay in uu ahaa ammaanka inay wax ka qabanayso oo meeshii uu taagnaa ay ka sii hagaajinayso inay ku fashilantay inay ammaanka wax ka qabato waxaana la gudboon hadda madaxweynuhu inuu isxasilo wallaahi haddii aan runta kaaga hadlo mas'uuliyadda waa loo kala sarreeyaa laakiin cid allaale ciddii u dhaarata dalka iyo dadka waxbaa ka soo gaaraya laakiin waa loo kala sarreeyaa marka waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka ugu sarreysa inay talada badiso ay 4 qof iyo 2 qof taladooda aan lagu soo koobin si dadka loo badbaadi lahaa mas'uuliyadu waa mas'uuliyad wadareed maxaa yeelay ninka askariga ah oo banaanka taagan oo ka shaqeynaya yani waad aragtay xilligan waxaan ku jirnaa xilliga marka la dhaho kuleelka Soomaaliya xilliga ugu kululshan hadda ku jirnaa askari Soomaaliyeed ba inta subax soo baxo wada soo istaago yaa wuxuu taagan yahay 24 saacadood laga yaabo inuu taagnaado askarigaas mas'uuliyadda uu dareemayo qof walba Soomaaliyeed muwaadin waa inuu dareemo mas'uuliyadda waxaan leeyahay aniga si kasto haddii xamar maanta aan geelno 300 kun oo ciidan iyo 500 kun oo ciidan haddii la keeno waxa ka muhiimsan in ay shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan mas'uuliyadda ummadda Soomaaliyeed inay saarantahay qof gooni oo maanta la leeyahay hebel bay saaran tahay ma jirto haddii la bedelo saraakiil iyo haddii wax kale la bedelo iyo xataa sida qaarkood dadka ay sheegayaan in hataa la yiraahdo xukuumadda mas'uuliyadda waxa iska leh qof walba oo Soomaaliyeed oo ka danqanaya dadkan aniga waxaan aaminsanahay mas'uuliyadda qof gooni oo loo xilsaari kara ma jiro maxaa yeelay saan ku sheegay waa mas'uuliyad wadareed haddaan marka dadku dhan iska wada qayb qaadanay si kasto oo amniga loo sugo mar walba waa taqaanay khalq loo jiri doono mid kale aan kugu daro 2 sano xukuumadda shaqeynaysa waxaan runtii aad uga xunnahay inaysan jirin wax ka soo reynaya xaaladda amniga haddana qaraxyadii ay marayaan si maalinle ah inay u dhacaan arrintaas aan arkayn wax tallaabooyin ah oo lagu hagaajinayo amniga dalka lagu badbaadinayo dhiigga dadka maaragtay la daadinayo inaanan u jeedin mas'uuliyadda madaxda dawladdaas kale aslanba taliyaasha ciidamada iyo ciidanku istiraatiijiyadda iyo policyga iyo siyaasaadka loo dejiyay fuliyaan ayagu mas'uuliyad ma qaadi karaan mas'uuliyadda kulligeed lama wada saari karo mas'uuliyadda dalkan amnigiisa waxa iska leh madaxweynaha taliyaha guud oo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya ayaa xilligan wajahaysa culays dhanka amniga waxaana jira dhaliilo kala duwan oo dhinacyo dhowr ah uga imaanaya xilligan Abdul Aziz Somali Cable magaalada Muqdisho.